kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta awada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray shacabka iyo dawladda dalka Djibouti رئيس وزراء حمزة عبد برre oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo hambalyo u diray shacabka dawladda dalka Djibouti رئيس وزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo daafuray mashruuc looga arinsanayo biyo xireenka magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray shacabka iyo dawladda dalka Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle dawladda Djibouti iyo guud ahaan shacabka dalkaasi maalinta xurriyadda ee 27 Juun madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay dadaalka iyo horumarka ee jamhuuriyadda Djibouti ku tallaabsatay tan iyo markii xurnimada qaadatay isagoo tilmaamay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeyo labada dal ee walaalaha ah waxaan ugu hambalyeenayaa walaalaheena jamhuuriyadda Djibouti sanad guurada 47 ee xurnimada Soomaaliya iyo Djibouti waxa ay wadaagaan taariikh dheer dhaqan iyo dhiig waxaan ku faanayaa horumarka iyo midnimada ay gaareen walaalaheena Djibouti waxaan u rajeynayaa mustaqbal ifayo iyo horumar waara sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay muhiimadda iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada isagoo uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka doorka ay ka qaateen dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya رئيس وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay qaraar ku saabsan qataraha amniga qaranka oo uu warbixin guud oo qiimeyn ah oo ka diyaariyay xafiiska amniga qaranka iyadoo oo laga duulayo aragtida cusub ee dawladda Soomaaliyeed ee ku salaysan amniga qaranka looga gaashaanto qataraha waaweyn ee halista gelin karo jiritaanka dawladnimada midnimada dalka iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed ayaa golaha waxa uu soo saaray isla markaana ansixiyay qaraar ka kooban 8 qodob oo qeexayo qataraha amniga qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo kala ah argagixisada aragtida goosadka dawlad nugeelka xuduudaha beelahda faragelinta shisheeye isbeddelka cimilada qatarta tiknoolajiyada qataraha bulshada shirka golaha wasiirada oo gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa warbixin ku saabsan munaasabadaha dabaaldegga maalmaha xurriyadda waxa laga dhageystay guddiga qabanqaabada oo soo bandhigay sida ay u qabsoontay munaasabadda 26 Juun iyo diyaar garowga 1 Luulyo sidoo kale golaha wasiirada ayaa warbixin ku saabsan howlgalladii ugu dambeeyay ee xasilinta dalka iyo dagaalada ka dhanka al-shabaab waxa uu ka dhageystay wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo daafuray mashruuc looga arinsanayo biyo xireenka magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar ka daafuray mashruuca nagaad ee hirgelinta nashqadeynta bulaacadaha iyo biyo mareynada magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in heer qaran oo si wadajir ah la isaga kaashan doono sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha bulaacadaha iyo biyo mareynada magaalada Muqdisho Soomaaliya marka arinteeda la warsanayo warmeeshii Muqdisho ahayd maxay la isweydiinay waxaan rabaa horta ugu horeyn inaan si buuxda halkan haddaanu nahay xukuumadda federaalka
idinla wadaagno maamulka gobolka iyo shacab weynaha magaalada muqdishoba in dawladda federaalku ay garab taagan tahay si weyn u garab taagan tahay maamulka gobolka iyo shacab weynaha sidii bilicda mataqaanaa quruxda laamiyada iyo hanaanka guud ee magaalada loo qurxin lahaa loona hagaajin lahaa waxaanu qiraynaa anigu gudoomiye madaale labadii habeenimo saddexdii habeenimona magaaladaanu dhex maraynay roobabku markii ay de'een laamiyo dhammaan la wada dhisay dabaqyo dhaadheer oo aanay magaaladani lahaan jirin populationkii loo jaangooyey drainage systemka ama biyo-mareennada oo boqol jibaarmay haddii xamar lixdameeyadii ay 100 kun oo qof ku noolaayeen maanta 3 milyan in ka badan baa ku nool sideetameeyadii markii dib loo eegayay mataqaanaa drainage systemka iyo biyo-mareennada iyo sewage-ka intii ku nooleed way koobnayd maanta laakiin xamar waxaa dhawaan dhammaanaya dabaq ah 25 dabaq 30 ayaa dhawaan dhammaanaya awalna say biyaana halbeeg inoo ahay soo saas ma ahayn wasaydu ma 6 bay ahayd mise 5 4 6 baa halbeeg inoo ahaan jirtay maantana 30 5 goor buu jibaarmay soo ma kuwa ka dhaadheerna waa la soo wadaa waxaa maanta ka dhisan magaalada muqdisho xaafado aad is oranayso war halkani ma Yurubba haddii aad tagto Dar es Salaam iyo haddii aad tagto magaalada Cidhifyadeeda Cabdicasiis guryaha laga dhisay xagga iyo hodan diyaaraddu markay kula dul marto war ma Nairobi ba dul maraysaa baad is oranaysaa mise Addis Ababa dabaqyada dhaadheer ee dhismaya haddii magaaladani ay ku sheegnaan jirtay warloodho iyo dagaal oo ay astaan u ahayd qarankii dumay maanta kumanaan kun oo dhalinyaro ah imtixaanaadkii ku maray soo saas ma haddii ay 4 laamiyo saa u mara lahayd iyo dhowr iyo 4 laami gooya halka iyo maxaa la yiraahdaa jidka warshadaha soddonka wadnaha miyahay afisoni soo inahaasi saas ma ahayno iyo 4 xabo gooye maanta gudoomiye madaalo kaliya marka la isugu celceliyay nambarkiisa 60 kilomitir maraya horta sida aynu u ildarannahay uma alaliin gobolka banaadir maamulkiisu wuxuu ku shaqeeyaa duruuf adag waayo magaalada muqdisho wixii qaranka ku dhaca culayska ugu badan ba iyadana ku dhaca haddii dalka lagu dagaalamo dagaalkii ugu cuslaaba ka dhacayay haddii laga qaxo qaxi ugu weynaaba ka dhacayay haddii loolanka iyo hirdanka siyaasadda Soomaaliyeed lagu loolamayay halkana mataqaana fadhiisankii madaxda ahayd oo lagu loolamayay haddii fikrado khaldan iyo afkaaro iyo faragelin ay nagu imanaysana disproportional weight ayaa ku dhacay magaalada waa magaalo marka dadku ay develop gareeyeen resilience ay iskaga ilaaliyaan halisa laakiin resilience-ki ay develop gareeyeen mid wuxuu noqday abaa mushtariguna uu isku tashado bahda waxbarashaduna isku tashato bagaashleyduna isku tashato culimadu isku cid waliba ay isku tashato hadda laakiin waxaynu maraynaa heer taladii la isu geegeeyay oo baa mushtariga Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir intay iskaashadaan ba intaas wada dhisan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in dawladda hoose ee Xamar ee sanadkan 2024 hortabin u leedahay xal u helidda iyo maareynta biyo-mareennada magaalada tan Muqdisho isagoona sheegay in sida ugu wanaagsan looga faa'iideysan doono mashruuca nagaad oo ay maalgelinayso bangiga adduunka laakiin waxaan codsanaynaa dhahnay dib u dhac wax la yiraahdo in laga ilaaliyo haddii dib u dhac yimaado waxaa suuragal ah inaan annagu isku dayno
mashruuca inaan bilowno haddii aan bilownana culays wuxuu ku noqonayaa cidda mashruuca qaadata ayuu ku noqonayaa oo World Bank-ga hadda ka hor waa ogyahay Maxamed Nuur Cadde dhowr jeer ayaan dhahnay intaasoo kiiloomitiraan noo ballan qaadeene waan idin sugaynay haddaan idin weyno waa isku tashanay markaasaan wax dhaqaajinay iyo jooji wax baa ku dhumayee iyo waay muddo la qabsado marka inaysan tiin ugu soo laaban ayaan rajaynaynaa ayaan dhahnay mudane ra'iisul wasaare istiraatiijiyada gobolka Banaadir waxay ahayd 2024ka 2024 qorshaha ugu horeeya wuxuu ahaa inaan meel marino biyaha درنيجيد إن كشقينو أيو أها وأن حوجين إسوجينو سيدا أن حوج إسوجيني ديسك ودوينكا سيدا سلم مدأ أي هذا قشينو رنتي دلال أيام باللوني سيدا وكذا واجنا يبدون وحين قولها جود وحن كبل لوني ورتي حسيه لاع وأن هبين لحسة عضات أن تيجي جرني أنا جاي أدقي إياه ركلا فربضنا وزراء وأن كسو أرك جرني ولاسك ماشي على سكجري way socotaa laboorka ayna hadda maraysaa meel ku dhow waxaan sidaas salamada iidan u maareynay iskuul booliisiya oo ah meel halbowli ah madaxduna ay wada maraan iiduna waxaan la kaashanay nimankii runtii meesha ku lahaa maaragtay shidaalka ku lahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale oo madasha ka hadlay ayaa dhankooda xusay in si wada jira la isaga kaashan doono dardargelinta howlaha nashqadeynta iyo dhismaha biyo mareynada magaalada Muqdisho dalka waa muraayadii dalka waxaana ku nool shacab aad u fara badan leh magaaladuna waxay soo wajahday dhibaatooyin fara badan oo la xiriira biyo mareenadii iyo daadadka roobka gaar ahaan xilliyada roobka isbeddelka cimiladu ay saameyn weyn ku yeesheen sida awgeed munaasabadan daahfurka nashqadeynta biyo mareenada waxay diiradda saaraysaa sidii aan u heli lahayn xal waara oo dhibaatadan biyo mareenada ee gobolka Banaadir ku soo laabtay ay u noqon lahaayeen xal waara sidii loogu heli lahaa waxay iftiimin doontaa caqabadaha jira iyo fursadaha lagama maarmaanka ah ee horumarinta maareynta biyaha magaalada Muqdisho iyadoo oo lagu saleynayo xog dhab ah cilmi baaris iyo qoto dheer oo ku salaasan daraasaadka haddeertan haddii Allah awoodda la yiraahdo aan rabno inaan sameeyno wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo mashruucan nagaad oo magaalooyin badan ka shaqeynaya hoggaan u ah iyadoo oo la kaashanayso maamulka gobolka Banaadir waxay diyaar u tahay inay si dhow ula shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee biyo mareenadu ay saameeyeen especially xilliyada roobka ay jiraan waxaa muhiim ah inaan iskaashi dhow wada yeelano oo wada shaqeyn ah sida hadda aan wada shaqeyno si aan u xaqiijino qorshayaasha in hor yaala mashaariicda hirgelinta ah oo ku salaysan munaasabada waxaa goobjoog ka ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo agaasimaha hay'adda UN Boss u qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya iyo madax kale oo ka socotay hay'ado kale maamulaha guud ee mashruuca nagaad Maxamed Nuur Xasan madaxa rugta ganacsiga Soomaaliyeed gudoomiyaasha degmooyinka agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale guud ahaan warkii telefishinka Hilaac waa naga inta